عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنا وناكسن داوديال إذا هنتي بمال كسوات جوكتان كسو دوادا برنامجكي هولكر مالينتي سي داوديال ودنغو براتين إنها بيولو خميسة أينو شخصي كسو مرتيقا عنو كلي وأتصود داوتين عدد كان عدد دي كهوريي وأينو سو مرتيقا عنو داد ترب بدن يولي بقار كمي دا حبناها عيدان كقلب كسيدا برسي عاوا وحا برنامجكي نكون عصوب أما مرتيو نوغو وميد كمي دا سراكيشا عيدا مدى أسلوبتا إجال كردحي قبود واليدنو حاوا مؤمن جامع أي يدو عاوة مرتين هو برنامج كان أمبابين كان عاوة هولكر أمانتي عاوة هم ونكسن كسر دوي استوديو برنامج ده. عندو هاي. ما صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو اليوم وحاوة مؤمن جامع. وعن كتر سنة هاي كور كبنتوسية. صح. قعد اليوم نولا ستة. ما توحن إنه ما هنقيا. صدق في عنا إنه بسوا دويسين أنتنكا. أما ساتين مركل. وتهاي أنا هنا آديات بني ذي كم هذا علنا استداد أوجسو جوابتي أديجا يولي بمسؤولين هذا مرتقات كائنين في ذنا يولي بس نص دويسين مانكي يعني نشوفني سي أي نداها وقع نو شقة آد كوبلارن عيد ما إلى هذا السبتة جال كردحي جواد كلي إن بدن بيدتكو سويديين شديدي وشقيان عيد ما جال كردحي جواد حوله سيو سعدان وحان أملنا عاوة إن دت بدن يكبرون دوران واي وحا عن يسود يرنا وربحين هذا بلارن أو كورا مسا حولها الشقو اللي يدنا حاوة مؤمن جامع يولي بدمان جودهان جال كردحي جواد يولي بتاريخ ديسي إتواشواحد داوديل waxaynu hore u soo aragnay ciidamada qalabka sida qaybaha kala gadisan simaanta laakiin waxaynu si gaar ah u soo boqonay oo ah markii koobaadna barnaamij noocan ah ku sameeyno waa liidno xawa muumin oo inuu ku soo marti qaaday cadadka barnaamijka hawlkar maalintiisii ee toddobaadkan waxa hadaba daawadayal sad nooga barateen baxaawa aynu la wadaagana maalin dhan nolol maalmeedkeega laga bilaabo xilliga ay guriga ka soo baxayso ilaa iyo waqtiga ay ku hooyanayso xawa waxa ay ka shaqeysaa ama ay ka hawlgashaa jeelka dhexe ee gabood waxa aynu maanta daaha ka qaadana isla mar ahaantan xooga ay dhusaarina shaqada dadka iyagu ka shaqeeya ama saraakiisha ka shaqeeya jeelka dhexe ee gabood sida u shaqeeyaan haday noqoto qaybta maamulka iyo waliba qaybaha kala duwan cadadkan waa isagu mid aad u muhiima waxaana uu noqon doonaa mid taariikh gal ah oo isagu ku saabsan jeelka dhexe ee gabood iyo waliba saraakiisha heerka sare ee ka shaqeeya assalaamu calaykum anoo diodno xamuumin dalaga penitentiaire waxaan ka qayb galayaa émissionga hawlkar iyo maalintii waxaad maanta iminka waa lixdii oo 20 shaqadeeda xilliga ma bilaabaya insha Allah waxaad maanta la socodootiin hawshan hayo la socod wanaagsan waxaan soo booqanay marti sharafka cadadka barnaamijkan hawlkar maalintiisii waana liidno xaawo muumin jaamac oo ay ka shaqeyso gaar ahaan qaybta maamulka waxa mudan in hoosta laga xariiqo in liidno xaawo muumin jaamac ay kamid tahay saraakiisha ka howlgala jeelka dhexe ee gabood waxana ay tahay shakhsiga saddexaad marka laga yimaado agaasimaha guud ee jeelka dhexe ee gabood iyo kabtanka waxana ay u sii jeedaa si ay uga qayb gasho raasumulamonga xoogaga aad ku firfircoon ee jeelka dhexe ee gabood waxana hadda liidno xaawo muumin jaamac ay si rasmi ah uga qayb qaadanaysaa raasumulamongaasi saacad imika waa 6 barkii dad qaasooga loo joogsaday ana qaasooga insha Allah aan ka qayb gali doona insha Allah waxana kulankani aad u ballaaran ka qayb qaata dhammaan ciidamada asluubta iyo saraakiishooda wala run ahaantii ciidan xambaarsan xil aad u culus oo muhiim ah waana ilaalada maxaabiista iyo kala hagidooda shaqadaasina ma aha haba yaraatee mid sahlan balse waxa dhamaantoodba ay kaga gudbaan dulqaad samir shaqo jacayl iyo waliba xilkasnimo Posez. 1. Repos. 1. À la disposition de l'officier de permanence montant. Garde pénitentiaire rassemblée, 3 absents avant vous. Capitaine! Merci. La garde. كاسوي بان كسو baxnay adeed waa saacadu waxay ku socotaa saacadii 7:15 waxaan ku ictimi doonaa xaafadii saan ilmahayga iskoolka ugu diyaariyo intii haatana raasooyinka laga dareeray ninba shaqadii buu aaday
annagu waxaan ka soo gaarsiin insha Allah waxaan isku daynaa ka soo gaarsiin ilaa 7 iyo barka si aan shaqadii horaba u bilaabo insha Allah. waxaana ay xaawa ay iska xil saartay in kaalinteeda hooyanimo ay sideedii uga soo baxdo waxaana ay had iyo habeenba ku dadaashaa sidii ay hawlaheega uga soo bixi lahayd iyada oo xooga saarta asluubta wanaagsan iyo waxbarashada ubadkayga waxaana subax waliba ay kacdaa sida hooyo waliba waqti hore si ay u diyaariso caruurteeda iyada oo dhinac kalena iyadu u diyaar garowda shaqadeeda in aad noqotid hooyo dhinac kalena shaqaale gaar ahaan ciidan ayaa mid aan marnaba fududayn haddana waxaa jirta in liyadno xaawa muumin jaamac ay arintaasi kaga gudubto firfircooni hawlkarnimo geesinimo iyo waliba tagu muhiimsan oo xilkasnimo daqiiqada kadib waxay dib u soo fuushay gaadhiga iyada oo hadda u sii jeeda jeelka dhexe ee Gabood balse inta aynu ku sii soconay waxayna siisay waraysi ay kaga hadlayso waxyaabaha ay qabato subaxii xilliga ay kacdo waxaan toosaa 4 iyo barka hawshii wixii yaalay xaafadda ayaan qabtaa ciyaalkan siba inankayga weyn yaan diyaariyaa iskoolkiisaan u diyaariyaa isagoo weli toosin marka kadib kolkay qaasooga 6 barka shaqadii waa inaan joogaayo calankii baa la saarayaa kolka inta kala hadaba yaan aan gudagalaa 7h30 إلى 7h15 أما 7h30 تنيجان إلى 7h15 حنكون صلّما حافظين سان كي جرا أن سكول كان بيكرر مركان سكول كاين كان صدقنا إن كذا بس عندكو حردي ما كل عام مركب هذا بقى هوشي جوني يجي ترافيجي أن بلابا سيدا كذا تسألوا روتين 8h30 ببلا منتا شقين كمسخشان الدولة ده يعني أنا عيدا بعناي كرتيد أيه هوشان waxaana ay leedno xaawa ay hadda si rasmi ah u bilaabaysaa wixii shaqo ee maalinkaasi u yaalay balse su'aal la isweydiiyo ayaa waa tuma xaawa waa gabar reer Djibouti waxaana ay waxbarashadeeda hoose dhexe iyo sare iyo waliba waxbarashadeeda heerka jaamacadeedba u qaadatay Jamhuuriyadda Djibouti iyada oo waligeedba ahayd shakhsi hawlkar oo aad u firfircoon ayaa waxay sanadku markii uu ahaa 2005 ay martay imtixaanka amaba tartanka shaqagalka ee ku saabsan maamulka jeelka dhexe ee Gabood waxaana ay kamid noqotay 102 xubnood oo waqtigaasi shaqo galay waxaana kadib tababar heer sare oo u socday muddo sanad iyo bar ay si rasmi ah u bilowday shaqadeedii ciidanka ee jeelka dhexe ee Gabood sanadku markii uu ahaa 2008 aajisayni baanahay وكان وحسوا قاعد حفيزكي halkii siidkii administratiifka oo biro ku yaalay imika waxaan insha Allah aan gali doonaa birogay iyo aqoon u leh ilka la aymayo calankiyo miisaankuna u calaamad yahayo ama suuban baanahay hase yeeshee maamulka jeelka dhexe ee Gabood oo hormuud ka yahay Colonel Maxamed Jaamac Yunis oo isagu ku dadaala had iyo habeenba tababaru fidinta shaqaalihiisa waxa uu suura geliyay xaawa 2012 in tababar darajada liyadnoonga ay ugu baxdo dugsiga maamulka jeelasha ee dalka Faransiiska waxaana sanadku markii uu ahaa 2016 ay mutaysatay oo loogu tolay darajada liyadnoonga waxaana tan iyo waqtigaasi ay tahay isku duwaha dhammaan hawlaha jeelka dhexe ee Gabood waxaana hoos yimaada isla mar ahaantana ka amar qaata dhammaan ciidanka ilaalada asluubta ee jeelka dhexe ee Gabood marka laga yimaado Colonel Maxamed Jaamac Yunis iyo Captain Abdi Ali Farid markaan saan birogayga u soo galo waxaan ugu horeeyaan sameeyo waxa weeye PC-gan hortaan fura wixii emailo halka maxkamadda looga soo diray baan eegaa hortaba iyo wixii maaragtay kale rapoora halka service-ka yimid ni wax iyaalin inkastoo aan sugay rapoorada subaxdaba kala haba inay qaar kale bay soo gaaraan insha Allah iminka waan eegay waan helay gmail-ka igu jira email-ka oo dhan waxaan mar dhow aan qaabili doonaana mas'uuliyadiisa opération
deux officiers Sulino Raage iyo Sulino Gulet iyadna xaawa ma u soo galay laba kamid ah saraakiil ku-xigeenada waxaanay ka wargelinayaan hawlaha shaqo ee maalinkaasi u yaala waxaana maanta saraakiil ku-xigeenadu ay qaabilsan yihiin geynta maxaabiista maxkamadda waxaana ay ka wargelinayaan in ay hirgeliyeen dhammaan tallaabo waliba oo daruuri ah oo shaqada ku saabsan waxaa mudan in liidno xaawa macay xiriir shaqo oo aad u wanaagsan la leedahay shaqaalaha iyada oo had iyo jeer garab joogta lana qabata wax waliba oo ay u baahan yihiin waxaana ay had iyo jeer iska xil saartaa in shaqadeeda ay sida ugu habboon isla mar ahaantana sida ugu wanaagsan ay uga soo baxdo kadib liidno xaawa oo ah mas-uul u jirta shaqadeeda ayaa waxay kasoo ambabaxday xafiiskeeda iyadoo oo fulinaysa howlo kormeer ah waxaana ay kormeeraysaa baabuurta ka baxaya jeelka ee u sii jeeda dhinaca iyo maxkamadda liidno xaawa ayaana ahayn mas-uuliyiinta waqtigooda ku qaata xafiiska balse waa mas-uul had iyo jeer garab taagan shaqaalaha kale waxaana ay u joogtaa shaqo waliba oo la qabanayo iyadoo ujeedada ka dambaysa ay tahay wanaajinta howlaha shaqo iyo weliba dhiirigelinta ciidanka kale ee maamulkeeda hoos yimaada liidno xaawa ayaa waxay caado u leedahay in had iyo jeer kormeerto dhammaan shaqooyinka maadaama ay shaqadu tahay mid ka duwan shaqooyinka kale isla mar ahaantana ka adag waayo maxaa yeelay waa maxaabiis xukun ku dhacay oo dembiye geystay waxa ay qaabilsan yihiin ilaaladooda iyo maarayntooda sidaasi awgeed waxaa xaawa har iyo habeenba awlawiyada koobaad ay siisaa foojignaanta habaynta maaraynta habsami u qabsoomidda howlaha iyadoo intaba ku fulinaysa si xilkasnimo iyo deganaanshuhu ku dheehan yahay kormeerkaasi kadibna waxay ku soo noqotay waa xafiiskeeda waxaana ay mar kale qaabishay mid ka mida gabdhaha saraakiisha ah ee habeennimadii xalay gaarhka haysay ee qaabilsanayd maaraynta iyo ilaalada jeelka dhexe ee Gabood waxaana ay u soo gudbisay liidno xaawa wixii warbixin ah ee ku saabsanayd shaqooyinkii ay qabatay iyo xaaladu sida ay ahayd habeennimadii xalay waxaa xusid mudan in hoosta laga xariiqo in jeelka dhexe ee Gabood ay ka howlgalaan tiro dhexe oo haween saraakiil ah oo runtii si wanaagsan oo habsami leh uga soo baxa howlaha shaqo ee loo igmaday iyada oo sinaanta u dhaxaysa ragga iyo haweenkuna ay tahay mid si wanaagsan u dabaqay agaasimaha guud ee jeelka dhexe ee Gabood Colonel Maxamed Jaamac Yunis oo isagoo fursad siiyay dhammaan haweenkaasi isagoo ku dadaalana horumarintooda iyo waliba kaalin gelintooda kulankaasi kadibna liidno xaawa ayaana siisay waraysi gaaban kaasoo ay kaga hadashay in hadda ay u galayso Captain Cabdi Cali Fariid oo gudbinayso wixii warbixin ah ee la soo gaarsiiyay iminka marka sidaan briefing aan dhamaynay ee tiraanki aan u baxnay aan soo aragnay in shaqada isku daba dhacday waxaan iminka ku xigtaa inaan u tago aan qoondiga aniguna markaygaan siiyo superior ya sheegay Captain Cabdi Cali Fariid director ajwaaga president waxaana jirta in si wanaagsan oo habboon ay u wada shaqeeyaan liidno xaawa iyo Captain Cabdi Cali Fariid Captain Cabdi Cali Fariid ayaa waxa uu yahay mas'uul had iyo jeer hawshiisa sida ugu habboon ugu wanaagsan uga soo baxa xiriir shaqo aad u wanaagsan la leh ciidanka jeelka dhexe ee ilaalada ee Gabood kulankaasi oo ku qabsoomay jawi wanaagsan ayaa waxa uu liidno xaawa ay u gudbisay dhammaan warbixinadii waana shaqo ay si joogto ah u qabato isla mar ahaantana u kaalin door ah ka qaato Captain Cabdi intaasi kadib liidno xaawa ayaa ka soo ambabaxday waxaana ay hadda iyada iyo kabtanka saraakiisha iyo waliba saraakiil ku-xigeenadu shir la galayaan agaasimaha guud ee jeelka dhexe ee Gabood Colonel Maxamed Jaamac Yunis shirkani ayaa haddaba lafdhabar u ah habsami u qabsoomidda howlaha shaqo ee jeelka dhexe ee Gabood waxaana shir gudoominaya Colonel Maxamed Jaamac Yunis waxaana u jooga Captain Cabdi liidno xaawa saraakiisha kale oo rag iyo haweenba leh iyo waliba saraakiil ku-xigeenada shirkani ayaa waxa uu yahay midka lagu lafaguro howlaha shaqo ee la soo qabtay caqabadaha lala kulmay halka loo helay iyo waliba qorsheynta howlaha shaqo ee soo socda shirkani ayaa sidoo kale ah midka lagu go'aamiyo qaraarada qaar ee ku wajahan habsami u qabsoomidda howlaha shaqo ee jeelka dhexe ee Gabood agaasimaha jeelka dhexe ee Gabood Colonel Maxamed Jaamac Yunis ayaa ah hogaamiye ku hanuuniya ciidankiisa hilinka toosan isaga oo wada simay ragga iyo haweenka waxaana uu had iyo habeen ku dadaalaa sidii uu kor ugu qaadi lahaa una horumarin lahaa dhammaan xubnaha ciidanka ilaalada asluubta ee jeelka dhexe ee Gabood shirkaasi oo jawi wanaagsan ku dhamaaday waxaana ay hadda qaadaysaa warbixino guud ahaaneed oo ku saabsan howlaha shaqo ee jeelka iyadoo oo gaarsiinaysa agaasimaha guud ee jeelka iminka waxaan kuriyayga baan gacanta ku hayaa waxaan ku sii socdaa bureaugi colonelka commandant de corps et directeur de la prison san kuriyayga isagu inuu saxeexay tahay aan hordhigo
waraysigaasi kadib Liyaad Nuux Xaawa ayaa waxay u soo kacday dhinaca iyo xafiiska agaasimaha guud ee jeelka dhexe ee Gabood waxaana sida ay ku sheegtay waraysiga ay u gudbinaysaa warbixino agaasimaha oo isagu caadiyan ba ah mas'uul u dhagan ugul shaqaalihiisa si joogto ahna ula shaqeeya ayaa guddoomiyay warbixinadaasi waxaana kulankaasi uu qabsoomay si wanaagsan iyadoo ah in hoosta laga xariiqo in xiriir shaqo oo aad u wanaagsan uu ka dhaxeeyo agaasimaha guud ee jeelka dhexe ee Gabood iyo dhammaan ciidankaasi ilaalada asluubta taasina waa mid muuqata oo run ahaantii laga dhexdheehan karo qaabka iyo nidaamka shaqooyinku ay u socdaan intaasi kadib waxaynu waraysi la yeelanay agaasimaha guud ee jeelka dhexe ee Gabood Colonel Maxamed Jaamac Yunis waxaana uu inooga waramay dhowr qodob sida taariikhda ciidanka iyo jeelka iyo waliba sinaanta u dhaxaysa ragga iyo haweenka ciidankan waxa weeye waa ciidanka asluubta agal penitentiary oo la abuuray kolkii waxay sanadku 2006 reform madaxweynuhu sameeyay jiro oo ku sameeyay justice-ka dhan kordhinta mataqaanaa xakinada iyo ciidanka mataqaanaa asluubta oo gaar u ah dadka xariga loo soo xidho dadka sharciga wax u geystay dee loo soo taxabo jeelasha waxay baabisay mataqaanaa tii la waranayay inuu booliisku qofkii ya sharciga soo qabto ku xadgudba dambigii baarka ku sameeyo dabadeedna maxkamadda geeyo maxkamaddana dabadeedna ka soo qaado keeno mataqaanaa xafiiskiina ku ilaaliyo taas wax weey waa xasaab kale iyo la jibiyay dawladda la jibiyayna wax weey waa sharci adduunyada dhanba dawlad sida dalka dimuqraadka waa saas inay haystaan weyn ciidan kale oo iyagu maareyn karo khibradna u leh inay dadka noo soo barto kolka wax weey dhammaan xilligaas la abuuray dawladda waxa la hirgeliyay 2011 dana soo noqdo mataqaanaa xagga haweenka waxa weeye in door weyn bay ka ciyaaraan ciidanka asluubta waxa weeye leeno ciidankan waxa dumarka loogu sameeyo horta waa la kala saaray maxbuuska meesha population carceralka labay tahay waa mas'uuliyad iyo femina inkastoo raggu u badan yihiin dumarku waa ugu yar dumarku waxay matalaan boqolkiiba 2 iyo badh ay matalaan 2% kolka waxaas wax badan ma laakiin waxay u baahan yihiin dumarkii meesha ku xiran inuu rag la shaqeeyaan ay ka shaqeeyaan ma dhici karaysa ma waxa kale waa inuu dumar la socdaan dumarkii waa loo baaday dumarkii waa la qoray waaga sanad walba recruitment-gana waa qaadnaa haddii kota qof la qorayo 12 waa iyaga administration-gana rag kale oo saraakiila jooga oo ofisiyadaasina waa xidiglayaal iyada ka darajada hoose iyadoo dusha ka wada haystaa gebi kolka wixii oo dhan kolka isku wada doobi rido ee maarayso iyo kentaa soo maraysa kabtanka gebi waxa soo dhan la keenaa oo isla wada eegnaa gebigeygu waa sidii imika hadeerto laba tiim darkiisana duusiyada dadkii soo galay iyo dadkii baxayay way keentay si anuguna dib mataqaanaa la socdo wixii meesha ka socda waxana maareeyay meesha ay waa saas u socotaa dadashay ka turjubaysaa inay yihiin mataqaanaa horta waxa ka tusaysaa inay meeshii ay rag maraan inay mari karaan dumarku moogta kolka waa ogtahay xukuumadda dhan baa dalka dhan baa ku dhisay imika 25% madaxweynuhu biiriyo ogta boqolkiiba 25 laga dhigay xagga paritiga dumarka oo tira waa weligeed la arag kolka waxa weey dumarku maanta meel ugu jooga haddaad eegto xagga dhakhtarada caafimaadka dhakhaatiir baa joogta haddaad ciidanka eegto ciidan kale way joogaan waxa weey balad weyn ay tagay ciidanadeen balad weyn ay jooga dumarka kolka meeshan xaggana asluubtuna kama maqna waxa weey sinaanta aad sheegaysid iyada shaqo fiicnay ay leeyihiin iyo deganaansho ay ka degan yihiin ragga yaa xitaa ka muuqata iskoolay tageen ay soo maraan golan saraakiil dareennada haddii gabadha rasiibkeedii la way tagtaa ee imtixaanka yeesho oon dirnaa meel agent la yiraahdo dirnaa dumarka oo administration penitentiaire school baa jiray kol agent ku yaala ka bitagaan gabadha imika lawaalaha adeertole intii xagga ka soo baxday iskoolka ka soo baxday kolka waxa weey dumarku waa shay xaggeegana waa qaali leena dumar baan rabnaa inaan maareyno meesha ku xiran qaar baa doonaya dakharligi dadkharnin raaci maayo kuwa daweynay waa dumar kuwa raacay waa dumar kuwa mataqaanaa ka furaya cuntada siinaya waa dumar wax maareynayo dhan waa dumar ma shaqeeyar oo shaqaadu dhib badan shaqaadu adag oo dad baa la wadayo la maareynayo ee la geeniyo meel laga soo dhaadhicinayo meel loo wado mana kala garanaysid qaarkood mataqaanaa yihiin qaar adag waxa lagaga baahan yahay inaad ugu deganaato inaad dagaal ku qaado ma inaad maskaxaan u dejiso oo kula socoto intaasi kadib Xaawa ayaa waxay ku soo noqotay xafiiskeeda waxaana ay mar kale la kulmaysaa wasuuliyad noo Farxaan Muuse oo ah mas'uulka xafiiska Greefka la yiraahdo oo ah
tiirka uu ku taagan yahay jeelku waana midka u dhexeeya maxaabiista iyo maxkamadda iyo adjudan cabdiraxmaan cabdilaahi saciid oo isaguna ah mas-uulka qaybta ay ku jiraan maxaabiistu waxaana ay ka dhageysatay labadaba wixii warbixin ah ee ay u sideen guud ahaan kulankaasi oo jawi habboon isagu ku qabsoomay ayaa waxay mar kale liidno xaawa ay muujisay sida ay uga go'an tahay fulinta iyo horumarinta howlaha shaqo ee loo igmaday iyada oo weliba ku dhaqmaysa si deganaashuhu iyo xilkasnimaduba ay ku dheehan tahay détention ou hadaa usoo noqon ka sous-officier hadaa ka bilaabo hawshiis wuxuu responsable si gaar uga yahay détention waxa weeye waa aqalada guryahan ay ku xiran yihiin maxaabiistu jeelku sidiiba mar hore baa inii sheegay uu kala baa meelo badan waa jeelal badan oo iskugu keenay jeelka gabood waa wax afgaaneed lagu yidhaahdo centre pénitentiaire kolkaa waxaa jira meeshii jeelkii nimanku ay ku xidhnaayeen jeelkii kaarteygii faamka iyo centre d'éducation surveillée loogu talagalay in lagu xidho maxay ahaydeen lagu hayo mineerka wixii 18 reer kolkaa intaa secteur أو جيل كجبادو كلا بحو يو responsable كي هاي أو لا صعد بيانات الكون condition de vie جو هالكا مخصنا لا santé هديو بحنا ركاد هدي ليه هنا سؤال وصوت ريا تهاي وحاسة دم ولا صعدة وكمان تو ساق سيدي عادي جبا الشقاد ومالك استغنوا نقول عضو ساق ويصو قلي يجبر قلي سيدي حبي شقاد وسعتي دمين حلي جا روحني شالي طالع شنتي إلا يو ساكن اللي تشوفه حكوا صوبي راي يو إذن ما يدي كدعي سيدا كله سلينو فرحان خلاص عضا يسوي responsable كيه ماش هالبولة هالكوباد أنا أرى كره كلاقي مادو سكروتيجا وغرافكي بيرو غرافكي responsable كيه هاي غرافكي بحوي وحريها أن شالك أيو محكمة دا وي وهالك لغلا صعدو دوسيada maxaabiista beenkoodii intii lagu soo xukumay xilli ay baxayaan rakeedadooda lagu soo ururiyo dalabyadooda demoondada waxay weydiisanayaan audiensada haday dalbadaan ay kolonka doonayaan inay la kulmaan halka ugu horeysa lagu qaabilay lagu eegay waa halbooli maxay ahaydaan prison way ugu responsable qaysawna sida kale wuxuu ugu yimid inuu iga wargaliyo halkay maanta shaqada socoto maalin kastana waa sidaas in la socdo wixii mushkilada la soo darsana ama problemka maxkamadana aan sidaan u xalin karaan isla eegna waxa gaadhay waqtigii booskii imika saanahay waan bixi waxaan doonay in ka yara kadibna waxaan isku soo laami doonaa insha Allah booska kadib haddii imika aynu dib u jaleecno taariikhda jeelka dhexe ee gabood ayaa waxaa jirta in jeelku magaciisa ka dhaxlay jagadani uu ka dhisan yahay oo waqtigaasi la oran jiray gabood jeelka dhexe ee gabood ayaa waxaa la asaasay sanadku markii waa 1960kii waxaana maamulkiisa hoostaga wasaaradda garsoorka qaabilsan arrimaha jeelasha iyo xuquuqul insaanka waxaana udub dhexaad u ah dhismayaasha jeelka goobaha lagu xareeyo maxaabiista oo u qaybsan dhowr qaybood oo kala ah qaybta lagu xareeyo maxaabiista ragga goobta lagu xareeyo dumarka iyo goobta lagu xareeyo dhalinta yar waxaana qaybahaasi ay u kala baxaan qayb xukunku uu ku dhacay iyo kuwo aan weli la xukumin iyada oo ay la xiriidho dardargelinta casriyeynta maamulka dawladda iyo dib u habeynta ay waxa 2006 la dhaqaajiyay howlgelinta ciidamada ilaalada asluubta iyada oo xilligaasi la qoray boqolkii askari ee u horeeyay ee iskugu jiray rag iyo haweenba waxaana sidaasi lagu bedelay nidaamkii hore ee ku shaqeynayay jeelka hore ee gabood iyada oo hadda maamulkiisa ay gacanta ku hayaan ciidanka ilaalada asluubta dhinaca kale jeelka gabood waxa uu xiriir wada shaqeyn oo aad u wanaagsan oo joogto ah oo la leeyahay maxkamadda dalka jeelka dhexe ee gabood waxa xundur u ah waaxda service de greffe oo ah mid isku xidha una dhaxaysa maxkamadda Djibouti maxaabiista iyo xafiisyada kale ee u qaabilsan howlaha maxaabiista jeelka waana halka u horeysa ee maxbuuska uu ku soo horeeyo ee qaabisha lagana diiwaan geliyo waxaana ay qaabilsan tahay la socodka xanuunkooda gudbinta baahidooda waana xafiiska la socodka xilliga saamaxadda ee waqtiyada munaasabada ee uu fidiyo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele waaxyaha tiir dhaxaadka u ah jeelka gabood
waxaa kaloo ka mid a xarunta caafimadeed ee jeelka uu leeyahay oo ah mid si hersada u qalabaysan waana mid door weyn ka ciyaarta adeega caafimaad ee maxbuuska iyo sidoo kale la tacaalidda xanuunada kala duwan ee ku dhaca dadka haddii uu maxbuuska uu qabo taasoo jeelka Gabood uu xiriir wanaagsan leeyahay wasaaradda caafimaadka ee dalka. jeelka dhexe ee Gabood ayaa waxa uu ku fadhiyaa dhul dhan 9,000 oo mitir kare waxaana jeelka dhexe ee Gabood uu yahay mid ka kooban dhowr qaybood waxaana qof waliba lagu xidhaa hadba darajada uu xukunkiisu gaarsiisan yahay iyada oo ugu horeynta laga dhaqaaqayo da'da waxaana uu ka kooban yahay qaybta lagu hayo caruurta sankorkaba ku soo xusay qaybta haweenka iyo qaybta ragga waxaana tan iyo 2008 jeelka gacanta ku haya ciidamada ilaalada asluubta oo la asaasay 2006 waxaana ay ka kooban yihiin boqolaal dhalinyaro ah oo rag iyo haweenba leh kuna shaqo galay kadib tababar ay soo galeen dhalinta ka howlgasha jeelka dhexe ee Gabood ayaa ugu horeyn ah dhalinyaro ul iyo diirkeed ah isku duuban si midatana u wada shaqeeya waana dhalinyaro aad u firfircoon waana dhalinyaro howlkar ah oo had iyo habeen ku dadaala sidii ay dadaalkooda kor ugu qaadi lahaayeen haba yaraatee ma sahlano in laga shaqeeyo ilaalada aadamaha iyadoo aynu ognahay in qaarkood ay halis yihiin oo dambiye ama falal xun ay geysteen balse waxa dhalintaasi ka howlgala jeelka dhexe ee Gabood ay muujiyeen isla mar ahaantan ay wax waliba kaga gudbaan waa kartidooda geesinimadooda firfircoonidooda iyo howlkarnimadooda mana ah runtii dhalinyaro caajisku galo shaqadooda balse waa kuwo had iyo jeer foojignaan dheeriya muujiya iyo waliba xilkasnimo xaqiiqduna waxa ay tahay qofka aqoonta iyo xirfadda leh ayuunbaa xaaladaha qaar xakamayn kara waxaana dhalintaasi ka howlgasha jeelka ay yihiin kuwo aqoontaasi iyo xirfaddaasiba leh maadaama ay jaamacado ka soo qalin jabiyeen kadibna ay qaateen tababaro military iyada oo weliba ay qaateen tababaro ku aadan xuquuqda aadamaha waana kadib markii la qalabeeyey dhalintaasi 2008 waxay shaqada kala wareegeen booliiska oo waqtigaasi isagu qaabilsanaa ilaalada maxaabiista ku jirta Gabood balse kadib dadaal ballaaran iyo juhdi badan waxa xukuumaddu ay hirgelisay ciidanka asluubta oo ah kuwa maanta gacanta ku haya jeelka dhexe ee Gabood macabulina aadmiga macadiba qofkii xidhan waxa aan isayaa xeer caalamka u dhigan sharci iyo cadaalada hadda waxay inu soo gaarnay xilligii laga soo noqonayay waqtiga nasashada waxaan mar kale isku soo noqonay waa Liidno Xaawa ayaa waxay hadda ku guda jirtaa diyaarinta booqashada iyada oo aynu joogno galab isniin ah ayaa waxaa jirta in maxaabiista qaar gaar ahaan kuwa deepooga ku jira ee aan wali la xukumin ay soo booqdaan qoysaskoodu iyo qaraabadoodu waxa mar kale u taagan habsami qabsoomida hawlahaasi shaqo waa Liidno Xaawa oo iyadu kormeeraysa dhammaan hawlahaasi dhinac kale waxa fulinaya gacantana ku haya hawshaasi waa shaqaalaha xirfadda iyo aqoonta iyo waliba farsamada u leh ee ilaalada jeelka oo iyagu foojignaan dheeri iyo had iyo jeer muujiya ahna kuwa shaqadooda daacadda u ah una hoggaansan Liidno Xaawa ayaa kadib xilligii ay kormeertay hawlahaasi ay ku soo noqotay xafiiskeeda iyada oo gudaha wali ugu jirta hawlaha shaqo ee gelinka dambe u yaalay waxa mar kale Liidno Xaawa u soo gashay waa haweeneyda gaarka habeenimada fuulaysa iyadoo ka wargelinaysa sida xaaladdu ay tahay tallaabooyinka ay qaaday iyo hawlaha shaqo ee habeenimada ay qaban doonto waxaa jirta in Liidno Xaawa ay ka hor inta aanay gurigeeda ku hooyeen ay hortaba iska xil saarto in shaqada ay si habsami leh ula socoto isla mar ahaantaana wax waliba ay eegto in uu dhan yahay kulankaasi ka wargelinta iyo talo wadaaga ayaa isugu si wanaagsan u soo dhamaaday waxaana hadda aynu soo gaarnay waa saacadii rawaxaada waxaana hadda Liidno Xaawa u sii jiidaa dhinaca iyo gurigeeda balse waxaa xusin mudan in hoosta laga xariiqo in hadiiba baahi ay timaado saacadii doontaba ha noqotee Liidno Xaawa ay dib u soo noqonayso waxaana taasi ay si cad uga turjumaysaa waa sida ay ugu hoggaansan tahay shaqadeeda daacad loogu tahay daawadayaal waxaan maryaade ugu bogoteen warbixintaas ay idiin soo diyaarnay waxaan mar kale soo noqonay waa Liidno Xaawa ama jaamac Xaawa ma kale habeen wanaagsan ku soo dhaweeyay hadaba marno war maalinkeenu kula wadaagno nolol maalmeedkaaga min subaxii ilaa iyo habeenkii inta aad waxaysay mar kale waad maadsan tahay Maxamed sida fiican aan ugu soo dhaweeysan studio-ga horta waxaad ogaataa markii ugu horeysay maahay edition ama emission laga sameeyo hawsha ay hayaan Gaabin Toosiyo si markan waxay kaga duwan tahay mararkii hore waxaad nala socoteen ama nala qaybsateen nala qaadateen maalin dhan hawshii aan hayni si u socotay Caesarkii kolka laga bilaabaraasoo ilaa iyo 5 kolka
waxaan u malayn inay maanta aad uga faa'iideyseen dad badan oonan ka qoonley ka haysay hawshan ahayno maalmeedka dabcan horta way mudan tahay in mar walba hawshiina laga sheekeeyo waayo hawsha ay hayaan ciidamada ilaalada asluubtu ayaan haba yaratee marnaba ahayn mid sahlan amba fudud waayo waxa la xakamaynayo waxa la maareynayo waxa la hagayo waa dad iyagu xukun ku dhacay qaar wali xukunkii sugaya waxa afka qala diipo lagu marka haba yaratee marnaba ma sahlano oo deegaanka ka shaqeeyana deegaan isagu la oran kara mararka qaar halis ayuu yeelan karaa balse waxa intuba ay kaga baxaan horta waa aqoonta waayo cidii aqoonta u leh unba wax maareyn karta waa aqoonta xirfadda tababarada ay u baxaan iyo waliba taamudnaanta aad siisaan oo maalinka aynu la joognay ahayd waa foojignaanta daawadayaal waayo qofkii foojigan isagu wax u fiirsanaya unbaa dee halis walba soo fuusaari karta iska eegi kara marka waxaan oran karnaa waxyaabaha mudnaanta amba awlawiyadda ay siiyaan ciidamada ilaalada asluubtu waa foojignaanta iyo waliba kala dambeynta haddii su-aashaan ka badna xaawa kulley dad badan baa caawa isweydiinaya xaawa muumin jaamac waa tuma bal dadka isbara magacaygu saan soo sheegay waxaa muumin jaamac waxaan ka tirsanaa ciidanka asluubta ee dalka Jabuuti waxaan sitaa grade de lieutenant waxaan anu ku dhashay magaalo madaxda Jabuuti halkaan waxbarashadeedii hoose dhexe iyo jaamacadeedba aan ku qaatay sanadkii kolkuu ahaa 2005 konkuur baan u maraysaan u integrayo koorka oo markaa ahaanaha koor markii uu la asaasayay maasha allah ilaahay mahadle maantana waxaan joogaa heer ofisiye anoo taana laygu daray hawl fonction inaan ahaado coordinatrice officier coordinateur voilà oo sidaan aan u joogo 3e position dabcan waa shaqo aad u culus baka darajada waliba lagu daro inaad mas'uul ka noqotid daawadeel sande warbixintaba aan ku soo sheegnay liidno xaawo muumin jaamac ka soo darajadeeda liidnoga waxa ay tahay waxa afka qalad loo yaqaan coordinatrice amaba isku duwaha dhammaan hawlaha jeelka dhexe ee Gabood waxaana ku xigta marka laga yimaado agaasimaha guud ee jeelka dhexe Gabood Colonel Maxamed Jaamac Yunis iyo Captain Cabdi Ali Fariid waxa ku xigta xaawo iyadu ay u simadaan dhammaan ciidanka inta kale qaybo kala duwan oo iyagu si toos ah ay u wada shaqeeyaan hadaba xaawo su'aal isweydiyo ayaa hawshani aad haysi goorma bilowday halkii baad ka bilowday hawshan saa ku soo sheegay markii dhaweedan waa marka aan grade d'officier aan maray sanadka ugu ahaa halka hore hadda ka bilaaba ciidanka asluubta waxa horta konkuur maray 2005 2006 ayaa soo baxay dekreegiina lagu xulayay 2007 kadibna waxaan aan bilownay formation ilaa ku dhawaad 2 sano oo socotay oo loo tababarayay halkii fiisiga ahaan shaqadayada 2008 ayaan kala wareegnay xilkii maareyntii Gabood jeelka Gabood ciidanka booliska aan kala wareegnay entre 2008 ilaa iyo 2011 intii xeerkii iyo maaragtay statut-gii la abuuray waxaan ku shaqeynaynay oo toolka penitentiary halka waxaan ku tirsanaa siiba anigu aka administrationka mararka qaar kuna intervenir jirnay teraanka oo teraankii aan contactiga maxaabiista aan la yeelin badiya kolka 2011 waxaan maray grade d'adjudant chef avant de partir en France sa formation lieutenant pénitentiaire nous sommes séminaire en 2012 et là 2013 watahay shaqooyinku xawa ibadiin markii aad qalin jabisay waad karisay in aad shaqooyin kala gashid ama shaqo kale aad qabatid si maxaa kugu dhali dareenkani inaad ka mid noqotid ciidamada ilaalada asluubta iyagoo aan waliba aan ognahayn waqtigaasi ay curdinaayeen markii uu la asaasay miyaad oran shaqo kale wad qaban kartaa muxuu yahay dareenkan kugu dhali inaad ciidanka ka mid noqotid وصاشت محمد وارون أردن بوها أساس هذا كاركو مركي هان مجرن وأنا قاب وجهرين با إذا كي وجهري الله حلا الله جوا أساس صبر أنا كارك قاعد بنتصيغ مركي هان محبك كمان جرين رطع فيها وضدنا جهري وإذا نجهري مجرن إذا كي مركي وجهري سيل
la xulo baaxayna waxa weeye inaan wax igu motiveeyay waxaan su-aashu iga fiicnaa inaad tira maxaa kugu motiveeyay maalin kasta depuis 13 ans ya maxaa ku motiveeyay inaan maalin kasta aad shaqo tagtid hawshaad qabatid waxa igu motiveeyay intii hore oo qolliima naga haysan ma garanayn tababarkan 2 ans demiga noo socday idilba waxay ahayd tababar paramilitaire sidii aan maadaragtay ko difaaca maxay ahaydana matriiska qofka lagu sameeyo difaaci ahaan nafteeda taanbaa ma jirin qof noo tabinay ama noo tabi karaayay experience-kiisa oo ka soo shaqeeyay horteen penitensiga annagu kolkaan la wareegnay maareyntii jeelka Gabood markii baan la kulanay shaqadii markii baan baranay sida Faransiiska lagu yiraahdo on a appris sur le tas waxa dhiirigelin maalin kasta nagu anaga difiyada badan arqabada badan ee nagu hormaada ayaa anaga difi ilaa imika nagu nana jeclaysiiyena shaqadeena ay gacan toosiga وتاي طبعا هرتو شقada ciidamada ilaalada suubta daawadayaal saan hore soo sheegnayba ma aha shay fudud balse waxa la oran karaa in muddadaasi ciidanku ay jiraan waxa ay ku soo baxeen baaday aan dib isku xasuusino taariikhda waa kadib dib u habeyntii dhinaca maamulka lagu sameeyay waqti qaar waxa jeelka dhexe ee Gabood sanadyan soo dhaafnay maareynay waa ciidanka booliiska balse kadib markii madaxweynaha jamhuuriyadda soo yimid dib u habeynta maamulka ayaa waxa la aasaasay ciidanka ilaalada asluubta oo iyagu ah ciidanka sida gaarka u qaabilsan maareynta jeelka dhexe ee Gabood waqtigaas oo curdinayeen ciidanku ayaa haddana waxa dhigbaha loo taagay 102 xubnood xilliga waqtigaasi haday tiradu sax tahay xawal iga sax hadinahayn laakiin xilligaas la qoray ciidankii u horeeyay waxaana intaba loo fiiyay tababar military oo ah sidii ay iskaga difaaci lahaayeen sidii ay ugu hortagi lahaayeen hadii ba xaalad ay timaado aba maxaabiistuba ay qaarkood yiraahdaan amba ay diidaan amarada la siinayo waayo maxbuusku xilliga la soo xiro waxa mudan in uu ixtiraamo tixgeliyo xeerarka lagu dhaqmayo jeelka gudihiisa qofku markuu dibadda joogo xor ayaa uu yahay laakiin xilliga uu soo galo gudaha jeelka ee xukunku ku dhaco waxa mudan qofku in uu xeerarkaas tixgeliyo haddaba cidii ka eegisay xeerarkaasi in la dabaqayo waa ciidamada ilaalada asluubta waa halka magacoodu ka soo galayo waxaana ciidanka dadka qaarkood ciidanka jeelka dhexe Gabood ay u garanayaan dad maxaabiista ku hayoon gudaha laakiin waxa ay u sameeyeen intoodaba waa dhaqan celin waxaana jirta daawadayaal waqti qaar kuwa halka lagu xiray oo maanta kadib markii tababaro loo fidiyay aqoontooda loo biiriyay dhaqan celin loo sameeyay ay maanta noqdeen dad naftooda iskeenay bulshada kamid noqdayna kuwa dadka ku soo biirsaday waxaana taas suura geliyay waa ciidanka ilaalada asluubta oo kadib markii dhibbaha loo taagay uu hawlgalay sidii jeelkaas u horeyn bay gacanta ku dhigi lahaayeen oo xakameyn lahaayeen dadkaasi u kala hagi lahaayeen dawga toosan ay u tusi lahaayeen hadii waqti qaar ciidanka booliisku ay maareyn jireen jeelka dhexe Gabood waxa la go'aamiyay in sida wadanada kale caalamkaba ay jiraan ciidan si gaar ah u qaabilsan ilaaladooda iyo asluubtooda waxaana maanta la oran karaa waa mid lagu faani karo waayo horumar balaaran ee laga gaadhay dhinaca sinaantuna waa ay muuqataa waxabada ka marag furaysa waaliyadno xawo min jaamac waanan joognay maalinkii jeelka Gabood aynu xawo maalinkeeda la wadaagnay waxa muuqatay in ay aad loo sameeyay sinaanta u dhaxaysa ragga iyo haweenka taasina waxa ay qayb ka tahay wakaalin gelinta iyo horumarinta haweenka jamhuuriyadda Djibouti iyadoo maanta aynu ognahay in haweenku ay kaalin walba ka muuqdaan xaw hadii aad soo noqon waxaad markaa nooga warantaa guud ahaan shaqada ciidamada ilaalada suubta ee jeelka dhexe Gabood waxay tahay guud ahaan horta mid aan ku kala saaro ilaan gacan toosiga ciidanka asluubta iyo jeelku laba kala yihiin صح ciidanku gacan toosiga ciidanka asluubta waa ciidan loo xulay si uu maareeyo jeelasha ka jira dalka Gaboodna waa jeelka ugu weyn ee maantahaan ka jira dalkeena kolka halka waxa isku kulmay saldhigii inuu Gabood iminka u noqoto saldhigii ugu horeeyay ee ciidanka gacan toosiga ee Soomaaliya lagu yaqaan ciidanka asluubta halka waxa kolka ka muuqata laba shaqo inay halka isku wada dhex gashay waxa jirta in aanu isku maareeyo aan isku xiriiriyo shaqooyinkii ciidanka iyo shaqadii laamihii service-ka ka jiray Gabood
ee prison sida gaarka u lahaa waxaa jira halka prisonda waxaa jira service grève oo saan soo sheegnayba uu qaybsan maaragtay la socodka situation penalka judiciaire maxaabista waxaa kaloo jira service détention oo isagu halkii ka shaqeeya teeraankii jooga oo la socda nolosha maxaabista guryahooda dhexda condition de vie iyo dhan la socda iyo security interior-koodii ee meesha inay ka jirtaa waxaa kaloo soo raaca service santé oo joogo doctor ka tirsan ciidanka penitentiaire iyo kalkaaliyaashii kale oo ciidanka uguna waxaa halkan ciidanka soo raaca service opération oo laba isugu kala baxa extraction iyo surveillance sidka iyo sid administratif iyo prisongiba waxaa kaloo jira ressources humaines service kastaba administration wadankaba service kastaba wuxuu leeyahay ressources humaines halka laga maarayo ciidankayaga waxaa kaloo soo raaca halkii cabinet directorialka cabinet commandement inta oo service uu kala baxaa dhan ciidanka dhanna xabsiga watahay dabcan waxaa kulli maamul walba qaybo badan ayuu ka kooban yahay kiinana maalinka waynu aragnay waqtiga mid aad isku daba yaalo si habsami leh loo qaybiyey balse waxaa mudan xaawo in la isweydiiyo idinku ciidanka kale waad ka duwan tihiin haddaba farsamooyinkan aad ku shaqaysaan ilan ciidanka kale shaqadooda waa la garanayaa idinku waxaad gacanta ku haysaan mid ka mid a shaqooyinka aadka u adag oo ah maxaabiis maarayntooda haddaba farsamooyinka aad ku shaqaysaan haddaad noqoto hadday kolleegaada noqoto shaqalaha kula shaqeeya halkeed ka barteen farsamooyinkaasi maadaama dee idinku aad haydeen promotion ama dufcaddii u horreysayba halkeed ka barateen haddaba farsamooyinkan aad ku maaraynaysaan hagidda kala hagidda maxaabiista maarayntooda farsamooyinkaas halkeed ka barateen dalkan igu siiyeba mise dibadda aad uga baxday farsamooyinka saan soo sheegnaba qolada dufcadda ugu horeysay baan promotion nagu horeeyay promotion nagu horeeyay ma jirin anaga ugu horeynay mar ahaantii markii aan ka soo baxnay muddo 2 sano ku dhawaada formation paramilitaire iyo noo raacdana barashada xeerasha u yaala dalka inaan hawsheenu waa xeerkii nidaamkii xeerkii maan sugaynaa waxaa kaloo timid ka teeraankii tagnay markii ugu horeysay waa shaqo adag bay ahayd oo lama maxay ahaydana looma haysan experience-keegi se direction waxay ku dadaaleen commandement wuxuu ku dadaalay sidoo tababar dad naga aqoon fiican naga aqoon horeeyay inay tababar noo fidin karaan waxaan ka faa'iideysanay avec coopération française inay nooga yimaadaan école nationale de l'administration pénitentiaire formateur nooga yimaadaan oo lagu tababaro hortaba askartii teeraanka maxay ahaydana sous-officier iyo homme de rangiba ee teeraanka ka shaqeynay in horta halka premiergi maaragtay utiigi la siiyo qaarkii waxay ka faa'iideysan anigu ka mid ahay inay u dhoofi karaan Faransiiska oo écoleka nationale de l'administration pénitentiaire ka formation ku qaadano formationada ay ka mid hayeen mise en condition wax la yiraahdo oo jeel Faransiis ka mid ah aan la geeyay halka Belgradkii Lyon loo tababaray aan ku shaqayn karno halkaana experience baan kala nimid waxaan aragnay prisonnier naga horeeyay waaweyn habkay u shaqeeyaan taaban aspiration aan ka soo qaadan inkastoo xeeriyan ayo dhaqahaan aniga kala duwanay meesha tusaale ayay noo noqotay ayaan kala nimid halkaas waxaa kaloo jira formationyaal hadday noqoto atelier siiba lagu sii xoojinayo connaissance-ka halka xeerka iyo ta waxyaalo la halmaal xuquuqdan la halmaalo oo dhan inay halkan aan kaga faa'iideysano dalkeena dhexdiisa kulli shaqo waliba way u baahan tahay tababar inuu qofku soo qaato inuu u hogaansanaado xirfadeediina uu lahaado wayna muuqataa oo ciidankiinu in tababaro badan aad soo qaadateen hadday noqoto kuwo maxalli oo dalkaad ku qaadateen iyo kuwo dalka dibadiisaba aad uga baxdeen aad ku soo qaadateen maanta waxaan u malayaa faa'iido weyn ay idin xambaarsan yihiin dhammaan tababaradaas soo qaateen waa kuwo aad maalin walba aad ku camal fashaan su'aashan xigta xaway kulli
shaqo walba marka laga hadlo faa'iido ay leedahay halisna way leedahay haddaan faa'iidada ku horeyno shaqada ciidamada ilaalada asluubtu maxaa la oran karaa faa'iido way leedahay maxamedow faa'iido badan horta way leedahay faa'iido u yeelato hortaba annaga faa'iido noo yeelato marka kaleba faa'iido u yeelato maxaa la yiraahdaa maxbuuski annaga faa'iidada aan ka arkayo waxa weeye waxa fursad naloo siiyay annaga inaan tababaro inaan dhaqan celis u celino u sameeyno dad mar ka mid ah noloshooda soo khaldamay inaan dhaqan celis aan u siino aan u fidino intii karaankayga sax faa'iido waxay u leedahay marka kale maxbuuskiyo isagu arkaya inuu noloshii fursad labaad la siin karo oo leeyahay in halkaasi maxay ahaydana formasyonyada qayaansakshan ka mid ah dowlakada la qayaansakshan aanu fidinayno hadday jeelka dhexdiisa noqoto iyo haddaan formasyo exteriorka jeelka baxsiisan sida arraxma iyo suusaasyaal qaarkooda fursadaha badan ee la siinay inuu ka faa'iideysto inay tahay ay tahay halkaana chance labaad inaa la siiyey ay tahay kolka faa'iidooyinkaas ayaa badan ayaa ka jira dabcan kulli faa'iidadu waa mid muuqata waayo dhinacna waxaan oran karnaa faa'iido idinka ay idin taho waxaad fursad ay u helayaan daawadaya ciidamada ilaalada asluubta haddii xoogaa aynu ka hadalno faa'iidada shaqadan ay leedahay waayo dadka qaar way ka qarsoon tahay waxa ay moodaan in marka la soo xidho qofka jeelka lagu ridayo oo sariirka lagu haynayo maaha ciidamada ilaalada asluubtu daawadayaal waxa ay u xilsaayeen shaqooyin aad u tiro badan shaqadoodana waxaa qayb ka ah dhaqan celinta iyo asluubta oo qofka ay hagaajiyaan waxaa jira dadka qaarkood waqtiga qaar la soo xidhay amba qof saa ay sheegtay waxaa noloshiisa qayb ahaanba soo khaldamay amba dembiba geystay oo la soo xidhay qofkii marka la soo xidho kama dhigno noloshiisa halkaas ay ku dhamaatay ama way istaagtay laakiin ciidamada ilaalada asluubta ayaa iyagu fursad labaad qofkii siinaya fursadaas oo laga leeyahay fursad labaad ee nolosha u leedahay iyada oo weliba tababar loo fidinayo hadday noqoto farsamada gacanta ragga hadday noqoto haweenka oo tulmaha la baro qaarkood waxaa jira in xitaa dhinaca diinta laga caawiyo qur-aanka la baro oo maalinkii aynu la joognay aynu soo aragnay haween gabdho yar oo qur-aanka loo dhigayo runtii waa waxyaabo aad u muhiima oo qofkii maxbuuska isagana taabanaya muu u tusayana in qofkani dhanka bini'aadantinimada ay si wanaagsan ula dhaqmayaan taasi dhinaca waxaa ka muuqata in xuquuqda bini'aadmiga amba xuquuqda aadamaha ay sideedii u tixgelinayaan ciidamada ilaalada asluubta jeelka dhexeega wada dhinac kale waxa ay fursad siinayaan waa maxbuuskii oo la soo xidhay dadka qaar marka la xidho waxay iska dhaadhiciyaan noloshooda wax kaasi ku istaagtay laakiin waxa taasi ka biyadiiday ambaba run ka sheegayba waa ciidamada ilaalada asluubta oo qofka marka la soo xidho u dhaqan celiya tababaro siiya si beritoole xilliga bulshada uu ku noqdo ama uu kamid noqdo bulshada si naftiisa uu u keeno khaladaadkii waqtiga qaar uu sameeyana uu uga baydho mustaqbalka uu noloshiisana u keeno marka faa'iidadu marna waa ciidanka ay u soo noqonaysaa marna waa maxbuuskii oo mustaqbalka noloshiisa la hagaajinayo waxaan oran karnaa xilligii la asaasay ciidamada ilaalada asluubtu in maanta maxaabiistu ay fursad u heleen in noloshooda marka ay ka soo baxaan jeelka amba xariga ay dhameystaan in fursad labaad nolosha qaar ay u helaan xitaa waxaan ognahay in dadka qaar ku xidhnaa jeelka dhexe ee gabood xilliga ay xariga uga dhameysteen ay soo baxeen ay noqdeen dad shaqaysta dad naftoodii keenay dad iyagu bulshadii kamid noqdo wax ku soo biirsaday taasna waxaa suuro geliyey waa ciidamada ilaalada asluubta oo kula dadaalay tusayna qofkani in khaladkii uu galay waqtiga qaar ama sanadii la soo dhaafay uu ka gudbi karo noqon karo qof saxa oo qof isagu bulshada kamid noqon kara oo waxna ku biirsan kara taas haddaan ka nimaadno dhinacii waxaanu imanaa haddaba halista shaqadiinu ay leedahay maxaad nooga sheegi kartaa maxamed horta shaqo waliba halisteeday leedahay annaga siiba waxaan ka shaqeynaa waa dad waxaan haynaa waa dad soo khaldamay saan sheegay haddaba dadkaasi khaladka keenay jeelkaa iyo haddaba ku kala yar khatarsan yihiin maxaabiistu isku waramin maaha waxaa dhici kartaa maxbuus inaa lagu soo xidho dembi yaroo fudud midna dembi ka khatarsan kolka haday jeer annaga waxay nooga baahan tahay foojignaan aad u weyn ayay nooga baahan tahay ereyska kale ee jira waa inaan halkii securitygaygii
aad xoojisaan aan xoojino hadday maxbuuskan kolka gaarkan laga haya prisonku maaha uun maxbuuskan ka ilaali inuu baxsado waxaa laga ilaalinayaa kaleeta inay wax dhibaata ee dibadda uga timaado iyagii halkii gudihii de toosaguna qofkii inaa la sugay tahay integrity physigiisa iyo moraalka ay tahay security interiorka qofkii intuu halkaa uu ku jiro intuu joogay intii lagu soo xukumay ilaa intuu dhamaysanayo waa inaynan waxba ku gaarin waxyeelo inay soo ful saarin ayay tahay kolkaa tuuriska waxay nooga baahan tahay anaga dhankayga si waliba badan foojignaan aad iyo aad u weyn صح dabcan dawadayaal halis shaqo waliba halis ayay leedahay laakiin waxaan oran karnaa in shaqada ciidamada ilaalada asluubtu ay runtii aad uga duwan tahay shaqooyinka kale haddii aynu xoogaa soo yeejiracno maxbuuska xaggu soo marayo bilowga dembi ayaa lagu qabtaa oo xubnaha ciidanka qabtaa amba shundar ha noqdaan ama booliis ha noqdaan maalin ama laba maalmo bahaynayaan amba inta dacwadu socotay la baarayo in dembigaasi uu galay in kale la hubinayo kabacdi maxkamadda loo tabinayaa maxkamadan waxay usii gudbinaysaa waajeelka dhexe gobol haddii dembigu uu kusoo baxo haddaba haddii qofkaasi dembigu kusoo baxo inta sannadood ee xariga lagu xidhay lagu xukumay waxa haddaba mas-uul ka noqonaya waa ciidamada ilaalada asluubta ciidamada ilaalada asluubta daawadayaal waxaa jirta in ay la nool yihiin ay si joogtaa xiriir u leeyihiin dad iyagu sanado lagu xidhay sanado lagu xukumay sanado badanba kadib dembiye ay geysteen marka waxaan oran karnaa halista shaqadaasi waa mid aad u badan maxaabiistuna hadda isku wada mid maaseexaa oo sheegtay waxaa jira dembi yar geystay dembi dhexe iyo dembi sareba marka in lala noolaado dad dembiye geystay dadka qaar way ku adag tahay laakiin ciidamadani waa kuwo iyagu u hoggaansan tababarana loo siiyey maalin walbana la jooga la nool dadkaasi waxaana run ahaantii aynu oran karnaa dadka qaar way u dhaqan celiyeenba oo dawgii toosnaa ayay tuseen kadib markii ay tuseen in noloshu ay xeerar leedahay isaguna uu xuquuqda leeyahay isagoo marnaba aan lagu xadgudbayn wixii xaq uu lahaa ayaa haddana noloshii dhinac kale laga tusaya dhinaca wanaagsan marka waxaan oran karnaa inkastoo halistu ay jirto oo ay la nool yihiin maxaabiis darajo walba ka kooban haddana waxa ay mar walba ku dadaalaan sidaan maalinkii aynu la joogna aragnayba waa foojignaanta oo mar walba had iyo jeer ay foojigan yihiin iyagoo weliba xoogga saaraya amniga welibana qofkan maxbuuska tusaya wixii xaq uu leeyahay iyo wixii aan xaq u lahayn qofka maxbuuska haddii xaqiisii aad tustid amba aad siisidba u dhamaystirtid xaqii wuxuu leeyahay sida dee xeerarku ay sheegayaanba xuquuqda aadamaha loo dhamaystiro qofkii dhinacii bini-aadamtinimadana aad si wanaagsan ula dhaqantid waxaaba suuragal ah in beri markuu soo baxo uu dhaqankiisii bedelo arkana in noloshu ay xeerar leedahay qofka bini-aadamku uu xuquuq leeyahay jirtana in waxyaaba qaar uu ka joogsado waxyaaba qaarna uu ku dhaqaaqo marka waa magacooga halkuu ka soo galayaba waa asluubta ciidamada ilaalada asluubta asluubtooda ay ilaalinayaan waxaana muuqata tan iyo xilligii dhibbaha loo taagayba ciidankan in dad badan ay u dhaqan celiyeen fursad labaad oo nolosha ay ku galaan ay ku siiyeen xawa taas haddii aynu ka nimaadno maadaamaan taa ka hadlayno weli may dhacday in ay nila soo gudboonaato xaalad ay maxaabiistu rabshada sameeyaan si haddii bay nila soo gudboonaatay sideed u xakameyn lahaydeen xaaladaasi weli nimana soo marin maad aragtay xaalad ka dhacaan alxamdulilah ilaah baa bahanda eese waan u tababaranahay hadday situation caynkaa oo kale ay dhacaan waan u tababaranahay tababarkayga ka mid ahayd saan ugu hortagi karno anu meetarisayn karno maad aragtay annagoo xeerkii adeegsanay oo dabaqayna waan u tababaranahay maasha allah waa tahay haddaba maxay yihiin haddii adigaan kusoo noqono ka xaawahaan maxay yihiin caqabadaha kusoo foos saaray tan iyo xilligii shaqadan aad qabatay caqabaduhu markii ugu horeysay aan sida aan hawshan uga howlgalnay jeelka gabood waa shaqo jadiidan waahayd oo wax ka adag la dhaqanka habla dhaqanka maaragtay maxaabiistu waa wax hortaayo qof soo marayna jirin oo experience-kii noo gudbiyo sidaaba la yeelaana meeshii una jirin oo kaa shaqo aada u adag bay ahayd mahad allaa leh waan la keennay annagoo xeerarkii markii dambe tababaradayna ka faa'iidaysanayna yaan la keennay maxay ahaydeen hawshii inaan sideedna iskugu dabarinin caqabadaha kale ee jira waxay annagoo dumarade waa shaqadan xabsiga oo kale la yidhahdaba horta waxaa loogu talagalay baa lays odhan karaa
niman inay ka shaqeeyaan anagii dumarkii meesheedii hawshii sinaantii markii hindisuhu uu hindisay presidentkeega Ismaaciil Umar Geelle inaa haweenkii la horumariyo kor loo qaado horumarka haweenka waxay kolkaa ay timid inaa haweenkii ay shaqo waliba ay galaan kolkaa doorkii intii haweenkii doorkan ka ciyaarahayn meeshii ayaa haddaba door kolkii hore ee meesha u leeyahay adkeyd nagu adkeedo oo teeraankii sidaan waa taqabanina waxaas oo dhan yar adke maasha Allah ilaahay ma hadlay wixii waan ka gudubnay après 13 ans expérience baan yeelanay maantana alxamdulillah wiska sidii kaftana ha haatee markii bilowgii aad shaqada gashay xawaay ee aad tiri waxaad ka shaqaynaysaa waa maareynta maxaabiis miyaan xoogay cabsi ku galin cabsi horta meesha lama aad haween tahay oo dadka qaarkood ay maskaxdu qaracsan tahay dii rag u ka shaqeeya jeelalka markaad jeelkii dhex gashay cagaha dhex dhigtay hawshii aad gashay miyaan xoogay cabsi ku galin maadaama haween tahay horta wax walba jadiidaba waxay leedahay horta marka ugu horeysaba waa qol-aanta waxa keeni karta maaragtay in wax in yaro cabsi aan oran karin ab khayaan loo oran karo inay meesha jirto anagoo aaminsan naftayada aaminsan tababarkii aan soo qaadanay ee paramilitaarkii taa oon isleenahay haddana dadkan waa insaan waa dad soo khaldamay insaaniyadda meesha ku dar ayaa keentay inay maaragtay si fiican u wajahno wixii hawl inagu hor yimaada kolka cabsi wax la sheegay meeshii badaya ma oon صح kulli dabcan waxa la oran jiray amba dadka qaarkood iska dhaadhiciyeen ba shaqada maxaabiista waa shaqo raguna ay ka shaqeeyeen laakiin daawadayaal waxa taasi ka run sheegay waa ciidamada ilaalada asluubta oo ka shaqeeya gabood jeelka dhexe ee gabood marka jeelka dhexe gabood hormaraysan waxa la moodaa in aragtaan rag qoriysito oo fuushan goobaha laga ilaaliyo laakiin gudahana waxa ka shaqeeya waa haween waxana kamid ah xawa iyo waliba saraakiisha kale iyo saraakiil ku xigeen la shaqeeya oo iyagu qaarkoodna haween ay ku jiraan runtii muujiyay kartidooda firfircoonidooda iyo sida waliba ay ugu jabiyeen in shaqadooda ay qabtaan waxaana maalinkii aan la joognay aan aragnay in haba yaraatee wax cabsi ah aanay marnaba ka muuqan oo sida raggu ay u shaqeynayaan ayaguna u shaqeynayaan taasina waa mid aad loo mahadiyo waxaana ay ka turjumaysaa ama ay ka marag furaysaa waa kaalingelinta horumarka haweenka Jamhuuriyadda Djibouti oo maanta dhinac walba ka muuqda haday noqoto ciidamada iyo waliba qaybaha kale ee xafiisyada dawladda taasina waxa soo hindisay dhibahana u taagay had iyo habeen ku dadaala waa madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Ismaaciil Umar Geelle iyo waliba marwada koowaad ee dalka ahna gudoomiyaha ururka qaran ee haweenka Djibouti oo iyadu u kurgashay sidii haweenku maanta ay horumar u gaari lahaayeen sidii haweenku ay goob waliba dhinac waliba uga muuqan lahaayeen sidii ay u heli lahaayeen iyaguna kaalingelintooda qayb ahaan waxa ku leeyahay marwada koowaad ee dalka oo iyadu madax ka ururka qaran ee haweenka Djibouti iyadoo waliba daawadayna ognahay in ururka qaran ee haweenka Djibouti waxyaabo badan haweenka u soo qabtay qayb ahaanna uu sabab u yahay horumarinta haweenka oo iyagu maanta dhinac walba ka muuqda waxaana kamid ah haweenka ilaalada asluubta ee jeelka dhexe ee gabood taas haddaan ka imanno xilligii shaqada aad bilowday iyo maanta farqi intee leeg ayaa la soo karaa u dhaxaysa ama u dhaxaya xilliga shaqadan bilowno wixii abkaaladku lagu yiri bilowban haynba waxa ma garanayno dad waxa tababar gaar ah la soo siiyay tababarka shaqada ay ma shaqada ka maqnay walka saan ku sheegay aday horta wax badan oo adag baan la soo daray ayaa nagu horeeyay maanta alxamdulillah ilaahay ma hadle halkan maanta aan joogno 13 sano kadib waxaan leeyahay experience weyn ayaad inay soo kordhay aan rajeynayaa inaan ka faa'iideyno farmashayaal anaga iminka waxa dhawaanta aan tababarnay jeelka dhexdiisa dufcad ka kooban 20 qof anaga ahayd markaa dadkii ugu horeeyay anaga ahayd qoladii ugu horeysay ee jeel loo xulo ciidan ugu horeysay jeel anaga ahayd markaa inaan uga faa'iideyno wixii maaragtay experience ee ku saabsan shaqada gaadfintoonsiga ee jeelasha dhexdooda anaga ahayd inaan ku kala uga faa'iideyno anaga ahayd farmasiyadu experience weyn baan ma sha Allah maanta
aan noo soo bixo way maxaa haddaba barnaamijka hadda gabagabo ayaynu kusoo dhunahay maxay yihiin waxyaabaha looga baahan yahay qof ka raba in uu ka mid noqdo ciidamada ilaalada suugta dhowr kriteer oo muhiima looga baahan yahay qofkii doonaya inuu ka mid noqdo ciidanka asluubta ugu horeyntii halkii fiisiga kaalite fiisig aada oo inaa laga helaa waa inuu certain bagage intellectualna u yeeshaa sababtaa qofka waxaa la rabaa inuu beritoole uu ka qayb galo reaction maxbuuska waxaase aada looga rabaa inuuna diyaar u haada ay tahay qofka doonaya inuu ciidanka asluubta ka mid noqdo dulqaad deganaansho insaaniyad in shaqadeenu waa shaqo dad ku saabsan waa dad waxaan ka shaqeyno dad baan doonaya inaan u dhaqan celino kolkaa waxaa la doonaya dowrkaa inuu qofku au fahmo wixii hawl halkaa laga sugayo way haddaba maadaama gabagabada kusoo dhawaanay maxay yihiin mashaariicda mustaqbalka hawaii ku qorshaysan inaad qabatid mustaqbalkaygan waxaa uu ku xiran yahay mustaqbalka koorka gaad bintooseegu hadduu kor u kaco development en phase de développement buu ku jiraa koorku waaba koor jeena ciidankiisu dhalinyaro ay tahay weli kolkaa faaskii development uu ku jiraa kolkaa markaa koorku kor u kacaba anagu da waa la soconaa insha allah rajeynaa inaan meel fiican ka gaarno ugu dambeyn maxaa tala iyo tusaale soo jeedin barnaamijka hadda gabagabo maxamed horta fursadda aan maanta na siisay oo aan kugu mahadnaqayo waxaan doonaya inaan ka faa'iidaysto oo teeka maanta aan haysto oo inaan dadkaan ka dhaadhicino jeelku si ay moodayaan maaha jeelka waxaa lagu hayaa dad soo khaldamay oo society ku soo khaldamay annagu intii doorkaygii waan ciyaarnaa maalin kasta oo sidii habka magaaziinkaba aad ka tustaan se waxaa meeshii ka maqan doorkayna ciyaaraha ahayd society civilku ay waxaad nala qaban hayeen reaction society civilkan waxaan uga jeedaa waa entrepreneur waa associationyaashii waa intii dadee doonaya ee inay wax annaga maaragtay inala qabtaan ayaa meeshii kama wara maqnay ee ka kale qayb ahaan laga ergaha gaabigay kolkaa waxaan jecelnahay halkanna aan baaqu uga diraya inay jeelkii ay soo galaan hawshii wixii taal ay nala participeen nala qaybsadaan waa tahay dawadeel waa sidaa ay soo sheegtay haddii barnaamijkuna waa gabagabo horta aad ayaan uga mahad celinaynaa xawaaliyadno xawa muumin jaamac sida ay uga soo jawaabtay martiqaadkii aynu u fidinay sidoo kale waxa aynu u mahad celinaynaa waa agaasimaha guud ee jeelka dhexe gabood colonel maxamed jaamac yunis oo isaguna aada noo soo dhaweeyay maalinkii aynu jeelka joognay iyo weliba kabteen cabdiyaali fariid iyo weliba anoona marnaba ilaa weyn gabadhii min subax ilaa iyo habeen barnaamijkeena waday faadumo oo ah qaybta warisgaarsiinta jeelka dhexe gabood oo iyadu hawl aada runtii u qurux badan nala qabatay aada iyo aad ayaan faadumana uga mahad celinaa iyo dhammaan shaqaalaha kale jeelka dhexe gabood oo si wanaagsan noo soo dhaweeyay daawadayaal waa muhiim baaqa ay soo jeedisay caawliyeedno xaawa waayo iyagu kaalintoodii waa ay ka soo baxeen waxaa dhiman amaba hoos loo gaabiyey waa kaalintii bulshada rayidka waxaa loo baahan yahay shirkadleydu in ay ka qayb galaan dadaalkaasi dhaqan celinta waayo beri dadka markay soo baxaan bulshadii unbay ka mid noqonayaan ina waa dadkeenii cid kale maaha shisheeyuhu ku yaryahay waa dadkeenii un waxaa dembiye qaar galay beritoona la soo bixi doona waxaa loo baahan haddaba dhaqan celintaasi in cid waliba ay ka qayb qaadato ururadu inay ka qayb qaataan shirkadleydu inay ka qayb qaataan oo ay la garab galaan dadaalkaasina ay qayb ka noqdaan dadkaasi lagu dhaqan celinayo waxaa dhici karta haddii maanta soomaalida hore u tahay gacmoodadib wax ku gooyaanay haddii dadaalkaasi la mideeyo oo la isku tago hadday noqoto shirkadley iyo bulshada rayidka iyo weliba ururada iyo cid waliba awooda maanta in dadaalkaasi dhaqan celinta ka qayb gasho in beritoole ay soo baxaan jiil cusub oo aqoon leh oo asluub leh
oo bulshada qayb ka noqon kara inkastoo dembiye qaar soo galeen sanadii la soo dhaafay haddana waxaa taasi masaxaysa oo meesha ka saaraysa waa asluubtii ay heleen waa dadaalkii la geliyey iyo weliba fikradihii la geliyey marka waa muhiim in bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ay ka qayb qaataan dadaalkaasi dhaqan celinta ah ururada iyo weliba shirkadeyda oo lagu baaqayna sidoo kale in ay jeelka dhexe gabood ay soo booqdaan arkaan dadaalada ka socda qofka maaha uun marka la xidho in noloshiisa lagu soo qobo saliil yar lagu xidho amba daaradeer uu shashirayo qofku dembi buu galaysa laakiin dembigii uu ka soo noqon karaa ilaahay baa khadamay bini aadamku khaldama marka waxa loo baahan yahay qofka in la siiyo fursad labaad oo nolosha uu ku qaato uu bulshada mar labaad uu qayb ka noqdo haddaba sidii fursadaas loo siin lahaa waa in fursado camal la siiyo sida farsamada gacanta oo la baro ragga tiknikada dhinaca gelishada baabuurta aduu farsamooyinku way badan yihiin in fursad labaad qofka la siiyo ragga iyo haweenka iyo weliba dhalinyarada da'da yar ee aan weli qaangaarin meesha ku jira in waxbarashadooda sidoo kale laga caawiyo marka waa loo baahan yahay gargaar weliba oo qayb ka noqonaya dadaalkaasi ciidamada ilaalada asluubtu ay wadaan in ay qayb ka noqdaan iyagoo hawshoodii way guteen wayna ku jiraan si maalinlaan ay u qabtaan balse intiini ayaa hadhay oo loo baahan yahay dawadeel waxaan umaleeyaa caawa dhambaalkaasi uu maray barnaamijkeena waa naga inta barnaamijkan mid lamid ah inta aynu mar kale ku kulmi doono waxaan idinku dhaafina habeen waxaan wanaagsan iyo weliba jimca mubaarak